raantii magaalada waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka ugu qadiimsan ee ku yaala wadankan magaaladan waxay taariikh aad iyo aad u dheer ku leedahay dadka ama qoomiyadda Yuhuudda raantii waa magaalada dad aad iyo aad u badan lagu badbaadiyay halkan qaarkoodna ay halkan naftu kaga baxday marka waxaan rabaa insha Allah inuu halkan nooga bilaabno maalinteena iyo warbixin ku saabsan arrimaha Yuhuudda ee magaaladan iyo gobolka Germany halkan ayuu ka bilaabi doonaa waad arkaysaa tareenka halkaas soo socda waa tareenada ugu qadiimsan ee dhulka dushiisa yaala magaalada ka shaqeeya raantii tareenka waad arkaysaa waa tareenada ugu qadiimsan ayuu ka mid yahay magacooda hore soo sheegay Yuhuudda ay lahaan jireen ama qofkii mas'uulka ka ahaa magaalada ugu mas'uulka ahaa waa centerkii magaaladooda dhisan tahay laakiin guryahan ma dhisna waad arkaysaa waa guryo kharaabada waa guryo burburkii ilaa imika aan ka soo kabsan sababaha loo dhis waayay ma garanayo waxani laakiin raantii waa guryo qadiimi ah sad arkaysaan oo sidii ay dadka ayaga qaarna loo badbaadiyay badankooda ninkii waaga wadanka tilay magac lahaa Hitler ahaa loo qariyay intii kale la badbaadi waayna halkan lagu duugay ayay guryahay ahaayeen iyagoo deganaayeen laakiin lama taaban maxaa yeelay dadkii dhisi lahaa oo iyaga ahaa magaalada badan kuma noola arkaysaa waa magaalada bartamaheeda magaalada way dhisan tahay laakiin kuwan maya sababahan ku sheegana waa sababaha qof ila wadaagay oo magaalada degan dartii oo mar hore sheegay ayaan jeclaysanaa fiidiyoga imkadina wadaago si aad taariikh uga ogaataan waa tii magaalada ay qoomiyadaasi raantii ku badbaadeen imika waxaan dhex maray haddii aad aaminaysa haddii kale oo bartamaha magaalada waxaad moodaa meel miyiga oo laga guuray waa hore haddana waa magaaladii bartamaheedii waa centerkii magaalada waxaanad moodaa meel laga guuray adigu 1880kii arkaysaa magaalada halkaasina waa halkii tareenada laga raacayay raantii waa magaalo si aan u fahmi haddaad timaado aad soconayso halkiibaad joogtaa raantaas wadiinsa su'aalo badan maxaa yeelay magaalooyinka badan ee Jarmalka way wada dhisan yihiin laakiin halkan raantii waad arkaysaa waa meel aad iyo aad u qadiimiya dadkuna badan ay jecel yihiin qadiimiga tareenada soo arkaysaa واشتراس بامبا الأولى لقد شرمكا ترينك وحبي مقالة أحمرة وذلك تسدو يجي بلوين راعينا سيد يبصو ترينك واكنا يديش شيء وينقلي دونات يعتنوا ستراكس أكسا وترين رانت عادي هذا قديمية يمكن وينقلي دونات سين وارقنا بل يمكن حمرة يا برتمان مقالة ده ترينك ما صارنا هاي حال كان يوحوي ايش هم لوجت تريو كوريا لوجت تريو مقالة ده والله يقانو وقد نجمع كرال هاوس guri magaalada looga tiriyo meeshana kala meel iyadoo sidoo kale kultuwa iyo iska magaalada kala ka soo arkaysaan sharaas bankira ma saarnaa ama tareenkii magaalada dhex marayay maanta meeshana meel aad u badan oo beera wada arkaysaan meel beero weeyaan oo kamida meelaha ugu qadiimsan magaalada soo kale imika waxaan soo gaarnay meeshii tareenada ama maxadda tareenada ama Bahnhof si loogu yaqaano raantii waa halkii laga saaray tareenka dad aad u tiro badan oo Yuhuud ah marka waxaan eegi doonaa godadkii ku jiri jireen iyo meelaha ay kala ahaayeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantood salaamaya maanta vlogger ugu talagalay inaan baro magaalo kamid ah magaalooyinka ugu qadiimsan wadanka Germany magaalada magaceeda waxa la yiraahdaa Gotha waxay ku taalaa gobolka Thuringen raantii magaaladan waa magaaladii qoomiyadii Yuhuudda ee wadanka jirtay markii uu kaligitariskii Hitler oo dadka aadka u leynayay waa magaaladii qori ee lagu badbaadiyay taariikhda raantii waxa jira magaaladan ee caan ku tahay in goobihii lagu badbaadiyo dhan ay tusi doono meelihii lagu qariyay teeda kale iyo intii kale la qabtayna meelihii lagu aasay imika waxaan joogaa Bahnhofka magaalada marka soo arkaysaan وكاوي مالي لو قريه
badbaadiyey ayay ka mid tahay waa god hoose leedahay halkanna ayaa tareenka laga saaray runtii halkan waxaa yimaada baan hoofkan dalxiisayaal aad iyo aad u tiro badan oo ka yimaada dunida inteeda kale oo badankood ay yihiin dad Yuhuuda si ay u arkaan taariikhda halkan taala waa meel aad iyo aad u qadiimi magaaladani waxaana lagu badbaadiyey in ka badan runtii intay yihiin ma garan laakiin ay dhowr milyan yihiin taxadarkan guryahan lamana ogola in la ag istaago iminka laakiin halka taaganaya waa baanhof ama xadada tareenka sida kolba loo yaqaano guryahani hoos ahaan boo daloola baanhofku wuxuu kala leeyahay meel halkaasa halkaa soo gelinaya halkaana iyadana waxa ku yaala gud guryo hoose oo loo galay in la galo kuwaasoo iyaguna yihiin kuwii lagu badbaadiyey laakiin halkani waa halkii laga saaray tareenka arigsaan waa meel aad u codlaa waana magaalo weyn laakiin codlaa badankeed maxaa yeelay waa magaalo aad u qadiimiya dadka degana aad u yar yihiin mana tuulaa magaaladan waxay ku taalaa xadka kala qaybiya gobolka Turingan iyo gobolka Hessen runtii gobolka Hessen baa caana sida wada arkaysaan halkan dadkan hoose waa meel hadda waqti xaadirkan xiran laakiin waa meelihii lagu badbaadiyay ay ka mid tahay guryaha yaryar aad arkaysaan baabada wada xiran halkani waa baanhofka weeyaan ama maxadadii tareenka waa meel aad iyo aad qadiimi ah runtii wada arkaysaan baabada yaryar ka yaala maanta video naga duubo maanta lama ogola meel aad xiran laakiin waxaan rabaa in la wadaago magaalada inteeda kala wataa meeshii baanhofka laakiin waa meel aad iyo aad qadiimi ah oo taariikh aad iyo aad ku leh waddankan aan joogay Germany khaasatan gobolkan Turingan khaasatan magaaladan runtii waxay imaada sanadkii ama samarka ama waqtiga kulaylaha dad aad iyo aad u tiro badan dalxiisayaal si ay taariikhdan ay u daawadaan ay u akhriyaan dadkaasi badan waxay u badan yihiin dad iyaga oo qabiilkaas laakiin aan deganeyn halkan badankood waddanka way degan yihiin Yuhuudu laakiin badan halkan ma degan maxaa yeelay halkani waa meel taariikhi ah oo soo dalxiis tagaano qura balan meelaha kale eegno iminka waxaan joognaa halkii taalada uga dhisnayd qowmiyadda Yuhuudda oo arkaysa taaladooda halkan waxaa ku qoran information ay dadkii iyo iyagii arkaysa halkana baashan waxa weeyaan oo sida masaajidkeenu kale leeyahay iyaga siina gubi baa la yiraahdaa runtii halkan iyagu taagan tahay taaladuna waa tan runtii taariikh aad iyo aad u weyn bay ku leeyihiin halkan waxaa la sameeyay meeshan aad arkaysa waa qubuurihii weeyaan dhinacan ay kasoo aad arkaysaa waa halkii ku aasan yihiin dad aad u badan oo Yuhuuda halkaasina ay ahayd meelihii lagu ay ku cibaadeysan jireen markii laga xiray waddanka halkani ma aha meesha ku cibaadeysan jireen laakiin waxay tahay meel markii dhaawacyadooda iyo dadka la qarinayo oo kale la gelin jiray xayl halkan qubuurahooda yahay sida wada arkaysaan halkan waa qubuurihii ay lahaayeen Yuhuudu wada arkaysaa gudihiina runtii badankooda halkaas weeyaan calaamadoodana arkaysaa